waraysigii ugu horreeyay ee uu bixiyo shaqsigii ugu hadal haynta badnaa siyaasadda Soomaalida sanooyinkii la soo dhaafay. waraysigan oo xambaarsan xogo xasaasiya iyo ka warramidda dhacdooyinkii dalka soo maray sanooyinkii la soo dhaafay ayaanu la yeelanay ama ka qaadnay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo soo qabtay 4 xil oo kala ahaa agaasimo madaxtooyo, agaasimo ku-xigeen NISA, agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA, iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. 4 jago iyo xilhaynta Fahad Yaasiin ee 5 sano iyo bilooyin dheeraad ah waxay leeyihiin dhacdooyin ku wareegsan oo xasaasi ah. waa markii koobaad oo Fahad warinta si toos ah nooga ogolaado inaan waraysi kala yeelano. warcelimaha aan waraysigan kaga bogan doontaan waxa kamid ah waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay sooyaalka shakhsiyadda Fahad Yaasiin koritaan xirfad يعني فهد ومعلم دكتور قرآن وصامري noloshii bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan macallin ka noqdo iyo kamid ahaanshaha kooxaha salafiga aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-Ittixaad Islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa dhammaan su'aalaha hoos imaanaya su'aasha weyn ee ah waa kuma Fahad Yaasiin. 2 maamulkiisa NISA oo ay ku jiraan su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ahaana waxyaabaha sida weyn dadka Soomaalida oo dhan ay jeclaan lahaayeen xog badan inay uga helaan. waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray. 3 doorkiisii faragelinta dawlad goboleedyada ee ay ku samaysay dawladdii oo xubinta sare ka ahaa ayna u horeysay Jubbaland dhacdooyinkii qarsoonaa ee Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhex maray. hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya. muxuu Fahad ka og yahay waanuna ka warsan doonaa. maanta waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka Jubbaland la samaystay waagaas. 4 warinta kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waa markii koobaad ee Fahad kiiskan furo ka hadalkiisa. Ikraan waa aqaanaa ayadana aqaanaa qoyskeedana aqaanaa hooyada ma aqaanaa familkeedana aqaanaa xogo xasaasiyana waa uu noo sheegay waan idin haynaa. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashii waa runtiisa aan mareena uu og yahay waa runtiis. 5 ruraanshaha isku milanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo kooxda argagixiso ee Al-Shabaab. 6 NISA maanta waxaa xukuma mahadsalaad waa maxay aragtidaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahadsalaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen. muxuu og yahay oo gaar ah oo waraysiga uu ku sheegay. waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinay. 7 dhalinyaro Soomaaliyeed ama askar hadba sidaa doonto ugu yeer ayaa laga qaaday Soomaaliya la geeyay Eritrea. maxaa xog ka hayaa Fahad Yaasiin? hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro. dhammaan su'aalo waaweyn oo la xiriira malafkaas ayaanu iyana weydiinay. 8 haddii laga guulaystay madaxweyne Farmaajo Fahad oo saaxiibkiis ahaa iyo isaguna ay bannaan joog yihiin maanta dawladda Qatar oo saameyn xoogan ku lahayd Soomaaliya saaxiibna la ahayd Fahad Yaasiin xiriirkeedu ma sii jiri doonaa? Fahad iyo Qatarse maxay tahay dunta isku xirtaa? Fahad institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dawladda Soomaaliya madax ka 9 shantii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaar ahaan saameynteeda gobolka ma dalal kooban ayay u xirnayd oo lagu raali galiyay. dal hay'adna wasuugadeed baa indho u ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah. 10 maxay tahay qisada Fahad Yaasiin iyo Djibouti? waraysigan gaarka ee aanu la yeelanay Fahad Yaasiin Xaaji intaas oo kaliya kuma koobna. haddii siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha. doorashada mar baa gashaa oo guuleysan mar kale aad geli ma guuleysanaysid waa natural adduunka oo dhan bay ka dhacdaa.
waa isku darka nolol wariyannimo shaqo siyaasi iyo xogo surdoon oo culus waxaana aanu wax badan kaga ogaan doonaa su'aalo badan oo aysan sahal ahayn inay bannaanka yimaadaan haddii waraysigan uusan naga ogolaan waraysigan waxaan u tami doonaa qaybo kala duwan oo halkan aanu marba qayb idin kugula wadaagi doono